بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داود الكسور دواده ورركي ugu dambeeyay gudaha Soomaalida iyo caalamka qodobada daawad doontaan waxa qayb ka ah Somaliland ayaa markii ugu horeysay waxay ku guuleysatay in dhammaanba diyaaradaha caalamiga ah isticmaalaya hawada Somaliland laga weeciyo hawada deegaana ka tirsan magaalooyinka Somaliland waxaan kula wadaagi doonaa sawiradii ugu dambeeyay ee lagu qaaday Google Mapka kuwaasi oo muujinaya in Somaliland ay la hadashay dhammaanba diyaaradihii isticmaalayay hawada Somaliland kuwaasi oo waqti xadirkan dhammaanba magaalooyinka waaweyn Hargeysa, Laascaanood, Burco iyo Boorama ka dhigaya kuwa hawanaya oo wax diyaarada aysan isticmaalaynin qalabka isticmaashay Somaliland oo durba argagax ku riday guud ahaanba dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena caalamkii ay la yaaban yihiin haddaba waxaan kula wadaagi doonaa diyaarad kasta oo isticmaashay hawada Somaliland dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka qaadanaysay $350 Mareykanka ah laakiin hadda lacagahaas oo idil waa ay weynaysaa waxaana la filayaa in dowladda federaalka Soomaaliya sanadadan ay khasaari karto ama bilahan lacag milyan dollar oo ay ka heli jirtay dhinaca iyo hawada Somaliland sidoo kale qalabka ay isticmaaleen Somaliland ayaa la sheegay xitaa in awood u leeyihiin inay qalqal geliyaan hawada koonfurta Soomaaliya sida magaalada Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo, Garowe, Boosaaso iyo magaalooyinka lacinka ah laakiin ilaahay haatan Somaliland waxay muujinaysaa ayaa la leeyahay taxaddar xooggan waxaan kula wadaagi doonaa muuqaaladii ugu dambeeyay oo muujinaya in hawada Soomaaliya wax diyaarada aysan isticmaalaynin marka laga reebo dhinaca hawada Somaliland oo ay soo gashay hal diyaaradeed ama hal diyaarad oo ay leedahay dowladda waddanka Qatar kaas oo maanta ka degtay garoonka diyaaradaha Egal International Airport haddaba miyay ka dhigan tahay in lagu kala adkaaday dagaalkii dhanka hawada u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland tallaabo eenka ah ayuuna qaadi karaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan la filayo in uu safar dalka dibaddiisa ka soo laabto sidoo kale halkii ayuu ku dambeeyay dhaxdhaxaadintii ay wadeen dowladaha Qatar iyo Djibouti oo doonayay in xalka madambeysa laga gaaro khilaafka ka dhashay arrimaha hawada ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland waxaan ka daba geyn doonaa xogihii ugu dambeeyay ee arrimahaasi ku saabsan iyo xogta rasmiga ah ee arrimahaasi quseeya qodobada kale ee xasaasiga ah daawad doontaan waxaa qayb ka ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay madaxweynaha waddanka Algeria haddaba labada dhinac maxay ka wada hadleen maxay yihiin heshiisyada ay galeen qaar ka mid ah wasaaradaha ugu muhiimsan ee labada waddan kuwaasi oo ku qotoma iskaashiga labada dhinac sidoo kale dhinacyada socdaalka waxbarashada iyo qaybo kala duwan oo xiriirka labada waddan lagu xoojinayo ayaa laga wada hadlay waxaan kula wadaagi doonaa war-saxaafadeedka ay soo saartay Villa Soomaaliya kaas oo looga hadlay safarka madaxweyne Xasan iyo wafdigiisa ay ku tageen magaalada Algiers sidoo kalena ay kula kulmeen madaxweynaha waddanka Algeria Cabdimajiid Taabuun ninka lagu magacaabo qodobada kale ee caalamiga ah ayaa daawad doontaan waxaa qayb ka ah xaaladda waddanka Suudaan ciidamada militariga Suudaan oo ku jira isdiyaarintii ugu dambeysay sidoo kale Turkiga qalab dagaal iyo diyaarado drone ayay ka dejiyeen magaalada Port Sudan si la mid ah saraakiil matalaysa dalka Masar oo qayb ka yahay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Masar ayaa gaaray Port Sudan wuxuuna la kulmay taliyaha guud ee ciidamada militariga Suudaan Cabdifataax Al-Burhani sidoo kalena ah hogaamiyaha ku-meel gaarka ee talada waddanka haya RSF waxaa la doonayaa in la isugu tago iyaga iyo Imaaraadka Carabta sidoo kalena casharo lama iloobaana loo dhigo loogana argudo shacabkii ay xasuuqeen waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee arrimahaasi ku saabsan qodobada kale ee caalamka ee daawad doontaan waxaa qayb ka ah madaxweynaha waddanka Syria Ahmed Al-Shara oo wareysi siinayay warbaahinta Focus News ayaa ka dabaashay su'aal ay weydiisay wariyihii wareysanaysay taas oo si cajiiba uu kaga jawaabay Ahmed Al-Shara waxaana wax laga weydiiyey sida uu arko weerarkii lagu qaatay daaraha mataanaha sanadku markuu ahaa 2001 laakiin si la yaab leh ayuu su'aashaasi jawaabteeda u bixiyey Ahmed Al-Shara waxaana is leedahay su'aalaha la weydiin doono Ahmed waa ay u diyaarsanaayeen koor inta uusan hor imaanin warbaahinta Mareykanka iyo kuwa heer galbeedka xogii ugu dambeeyay iyo wareysigaasi oo dhinacyo badan taabanaya ayaan kula wadaagi doonaa qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordha ayaa daawad doontaan balse marka hore soo dhawaada laagsaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada sidoo kale qayb ka noqon saaxiibada ku xiran waxaan ku soconnaa waddadii aan ku gaari lahayn
30,000 oo subscribe kaliya safarkeena adiga ayaa ka dhiman ee suulka saar oo subscribe inoo saar channelka mahadsanidin waagaag aynu ku bilowno dagaalkii hawada ee u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya ayaa u muuqda markan in lagu kala adkaaday Somaliland markii ugu horeysay waxaa suura gashay in amarkii ay ku soo rogtay wixii ka dambeeyay 10ka bishan diyaaradaha caalamiga ah ee isticmaala hawada Somaliland uu yahay mid dhaqan galay shalayto saraakiil ka tirsan hay'adda socdaalka ee civil aviation-ka Somaliland ayaa waxay la hadleen qaar ka mid ah diyaaradaha isticmaalaya hawada Somaliland tanina waxa ay dhalisay qalqal xooggan iyada oo maanta inta badan ay hawanaysay hawada Somaliland kaliyana waxaa soo marayay diyaaradaha ogolaanshaha ka haysta hay'adda socdaalka iyo duulista hawada sare ee Somaliland muuqaalo lagu baahiyay barbaahinta bulshada iyo sidoo kale Google Map-ka waxay muujinayaan hawada Somaliland maanta inay ahayd mid hawanaysa 100% kaliyana waxaa jirtay hal diyaarad oo soo gashay hawada Somaliland taasi oo ahayd diyaaradda lagu magacaabo Qatar Airways diyaaraddaasi ayaana la sheegay inay ka degaysay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland tani waxay muujinaysaa ayaa leeyahay Somaliland inay la soo baxday awood la mid ah awoodda waqti xaadirkan hawada ay ku maamulayso dowladda federaalka Soomaaliya waxaana la leeyahay awoodda Somaliland waqti xaadirkan waa mid aan marnaba la dhayalsan karin tani oo ka dhigan in qalabka yaalla magaalada Muqdisho iyo qalabka yaalla magaalada Hargeysa uu yahay mid isku mid ah xoga soo baxaya waxay tilmaamayaan markii hay'adda ECAWA ay soo wareejinaysay nidaamka duulista hawada ee Soomaaliya in qalabyada lagu kala rakibay Baydhabo Muqdisho iyo Hargeysa laakiin kaliya waxa shaqeynayay qalabka magaalada Muqdisho Somaliland hadda maadaama dagaal lagu furay waxa ay garab ka heshay qaar ka mid ah dowladaha Mareykanka sida Imaaraadka Carabta iyo dalal kale tanina waxay fududeysay ayaa la leeyahay in la kiciyo qalabkii ku rakibnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland kaas oo la mid ah ama ku awooda ayaa la leeyahay qalabka yaalla Baydhabo iyo Muqdisho Somaliland waqti xaadirkan waxay awood u leedahay inay la hadasho sidoo kalena qadad kala duwan ay ku furto dhammaanba diyaaradaha isticmaalaya hawada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida deegaanada koonfurta Muqdisho Baydhabo Kismaayo Garowe iyo magaalooyinka la midka ah sida Boosaaso laakiin ilaa ay haatan tallaabo noocaasi ama aysan qaadin madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa kaliya waxa uu ku adkeysanayaa in Somaliland ay xaq u leedahay in hawadeeda dhulkeeda iyo baddeeda iyadu ay ku filan tahay sidoo kalena ay maamulanayso wixii ku soo xadgudbana tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan sidoo kale waxaa la leeyahay Somaliland ayaa waxay si adkeynaysaa dhammaanba nidaamyada socdaalka ee ka soo baxaya dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya inaanu qusaynin maanta war kooban oo ay soo saartay Somaliland waxaa lagu sheegay in diyaaraddii isku dayda in nidaamka e-visa qof u hoggaansan ay soo qaado kana soo dejisay Hargeysa dhammaanba ruqsadda si rasmiya lagala laaban doono waana hanjabaadii ugu dambeysay ee ka imaanaysa dhinaca Somaliland tani oo ku tusaysa in Cabdiraxmaan Ciro iyo Somaliland waqti xaadirkan ay gaarayaan guulo wax ku ool ah dagaalkii hawada waxaa la leeyahay ama dadka falanqeeya arrimaha socdaalka ay leeyihiin tani waxay muujinaysaa in gebi ahaanba lagu kala adkaaday maadaama hadda hawadii qalqal la geliyey diyaaradihii caalamiga ah gebi ahaanba ay ka wacdeen isticmaalka hawada Somaliland iyo Soomaaliya labaduba meelaha ugu badan ee sidoo kale diyaaradaha caalamiga isticmaalayeenna waxay ahaayeen hawada Somaliland sida magaalooyinka Laascaanood Burco Berbera Boorame iyo magaalooyinka la midka ah sida Hargeysa haatanna sawiradii ugu dambeeyay haddaba adiga Google Map-ka waa ka fiiri kartaa qaybta live-ka diyaaradaha dul maraya Somaliland aad ay u koobiyiin ama maba jiraanba 12 saac la soo dhaafay tani oo ka dhigan in gebi ahaanba arrinkaasi lagu kala adkaaday dowladda federaalka Soomaaliya waxay khasaari kartaa ayaa la leeyahay bilaa soo aadan milyan dollar maadaama diyaarad kasta oo dul marta hawada Somaliland ay ka qaadaysay lacag dhan $350 xitaa qayb yar oo ka mid ah haddii hawada Somaliland diyaaraddaasi ama Soomaaliya ay soo marto dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda socdaalka ama civil aviation-ka Soomaaliya waxa u dhaceysay lacag dhan $350 Mareykanka ah taasoo ka dhigan in si maalinle ah lacag $10,000 ah ay u qaadanayeen dowladda federaalka Soomaaliya bishiina waxay noqonaysaa $1,000,000 laakiin hadda lacagtaasi waa ay weli doontaa dowladda federaalka Soomaaliya sida ay wax ku socdaan Somaliland waxay leedahay hawadayda ciddii doonaysa inay isticmaasho waa inay aniga sharciyad iga qaadataa sidoo kale ogolaansho aniga aan siiyaa
ciddii taasi aan oggolaynna gebi ahaanba ma isticmaali karaan ama uma oggolin in ay isticmaalaan hawadeenna. sidoo kale waxaa la leeyahay qalqalkan ku yimid duulimaadka hawada ee Soomaaliya iyo Somaliland waxaa durba ka faa'iidaystay dowladaha Djibouti iyo Ethiopia, waxaana kolkii aad Google-ka maapka ka eegto qaybta live-ka hawada Ethiopia iyo Djibouti ay noqdeen kuwa buuxsamay oo weliba si xad dhaaf isu buux dhaafiyey, taasoo ka dhigan dhaqaalihii ka lumay dowladda federaalka Soomaaliya inay u weecanayaan Ethiopia iyo Djibouti. sidoo kale waxaa jira wadahadallo xooggan iyo waawaan u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland, waxaana waanwaantan wada dowladaha Qatar iyo dowladda Djibouti ilaa haatan. laakiin waxaa la leeyahay wafdigii Hargeysa joogay kuma guulaysan in madaxweyne Cabdiraxmaan Cirre ay ku qanciyaan in hoos loo dhigo dagaalkan, sidoo kalena Somaliland ay joojiso qalqalka ay ku furayso hawada Somaliland iyo tan Soomaaliyaba. qodobkan iyo waxyaabaha ku soo kordha isla halkan ayaad ka daawan doontaa. dhinaca kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Algiers ee dalka Algeria ayaa heshiisyo kala duwan waxa uu la saxiixday dhiggiisa waddanka Algeria. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhiggiisa waddanka Algeria Cabdimajiid Taabuun ayaa goobjoog ka ahaa heshiisyo ay kala saxiixdeen wasaaradaha arrimaha dibadda, waxbarashada, xanaanada xoolaha iyo batroolka, waxaana heshiiskan uu ahaa mid iskaashi oo ballaaran oo ay ka mid yihiin dhoofinta xoolaha, horumarinta beeraha, waxbarashada, shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah, iyo fududaynta socdaalka ee baasaboorka diblomaasiga Soomaaliga ah oo lagu siin doono dhammaanba muwaadiniinta Soomaaliyeed ee fiisaha dalkugalka ama ay ku heli doonaan gudaha dalka Algeria garoomada ku yaala. heshiiskan ayaa dhidibada u xaaraya iskaashi istiraatiiji ah oo dan u ah labada waddan iyo shacabka walaalaha ah ee Soomaaliyeed iyo Algeria. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu mahadceliyey madaxweynaha iyo shacabka reer Algeria soo dhoweynta diiran iyo walaaltinimada ay u muujiyeen, isaga oo tusay kaalinta ay Algeria kaga jirto difaaca danaha Afrika iyo garab istaagga dowladaha saaxiibka la ah. sidoo kale waxaa madaxweynuhu u mahadceliyey dhiggiisa waddanka Algeria Yabooha. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa madaxweynaha waddanka Algeria uga mahadceliyey Yabooha in ka badan 500 oo arday Soomaaliyeed ah, kuwaasi oo waxbarasho bilaasha ka heli doona gudaha dalka Algeria, si gaar ah waxyaabaha Soomaalida ay danaynayso inay ka faa'iidaystaan oo takhasusada muhiimka ah sida beeraha, kalluumaysiga iyo shidaalka. ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya ayaa ammaanay hoggaanka madaxweyne Taabuun ee hirgelinta sanduuqa iskaashiga iyo midnimada Afrika, isagoo oo sheegay in uu yahay hindise aragti fog leh oo xoojinaya wadajirka iyo horumarka qaaradda, isla markaana Soomaaliya ay rajaynayso inay noqoto dalalka ka faa'iidaysta sanduuqan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarkiisa Algeria waxyaabo fara badan ayaa ku gadaamnaa, waxaana la leeyahay Algeria waxaa weydiisan doonaa gaaska dabiiciga ah oo uu doonayo inuu kula dagaalamo ama qayb uu ka noqdo ama uu lagu xoojiyo dagaalka ka dhanka argagixisada, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya si gaara militariga shidaal la'aan xooggan ay wajahayaan. Algeria waxaa la leeyahay maraakiib shidaal ay ugu deeqaysaa dowladda federaalka Soomaaliya, laakiin su'aalaha isweydiinta badan waxay tahay halkee ayuu aaday shidaalkii dowladda federaalka Soomaaliya loogu deeqay ee ka yimid dhinaca iyo dalka Liibiya. waxaana la leeyahay madaxweyne Xasan iyo kooxdiisa ama mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa maasuqay shidaalkaasi oo suuqa madow ayaa lagu iibiyey kor inta aanu soo gaarin gudaha Soomaaliya. qodobkaas intaas ayaan kaga gudbayaa. dhinaca kale qodobada caalamiga ayaanu markaan u gudbaynaa. dalka Suudaan waxaa ka socda abaabul xooggan, ciidamada militariga ayaa sidoo kale waxay wadaan dib u qaabeen ballaaran. dowladaha Turkiga iyo Masaarida ayaa sidoo kale waxay wadaan garab istaag xooggan. 72 saac ee la soo dhaafay Turkiga ayaa boorta Suudaan waxa uu ka dejiyey diyaarado dagaal kuwaasi oo sida hubka noocyadiisa kala duwan, gaadiidka gaashaaman iyo sidoo kale diyaarado daroon ah. waxaana Turkidu ay saacad u sheegeen inay garab taagan yihiin ciidamada militariga Suudaan oo ay ku sheegeen in ay yihiin kuwa kaliya ee difaacaya shacabka reer Suudaan. dowladda waddanka Turkiga ayaa saaxiib waxay la tahay dowladda Suudaan, waxaana doonaysaa inay ka hortagto qorshaha dowladda Sultanka Imaaraadka Carabta ay ku doonayso inay ku naafayso guud ahaanba shacabka reer Suudaan. si arrimahaasi loo fuliyana
waa in la xoojiyaa oo la taageeraa ciidamada suudaan. sidoo kale dowladda waddanka masar ayaa markii ugu horreysay ku soo biirtay iskaashiga militari ee u dhexeeya waddamada suudaan, turkiga iyo dalka masar. maanta magaalada boorta suudaan oo xarunta u ah militariga suudaan waxaa gaaray wasiirka arrimaha dibadda waddanka masar ninka lagu magacaabo beder cabdallati, waxaana halkaasi uu kula kulmay cabdifatax alburhani oo ah hogaamiyaha kumeelgaarka dalka suudaan, sidoo kalena ah taliyaha guud ee ciidamada militariga, iyadoo masaaridu ay muujiyeen sida ay kaga go'an tahay in ay doonayaan in la garab istaago walaalaha suudaan. dowladda masar iyo turkiga bilihii ugu dambeeyey waxay u muuqdaan xiriirkooda inuu aad isugu soo dhowaanaya. sidoo kale qadiyada fara badan oo ay ka midaysan yihiin ayaa jira, sida in aan la burburin kooxda xamaas, sidoo kalena aan hubka laga dhigin. waxaana leeyahay masaarida iyo turkida waxay u muuqdaan kuwo ka gedisan dhammaanba dalalka kale ee islaamka iyo kuwa carbeed oo si weyn ugu hoggaansan waddamada reer galbeedka iyo sidoo kale maraykanka. suudaan ciidamadooda waxay wadaan diyaargarow xooggan, waxayna doonayaan inay ku duulaan waqooyiga suudaan, si gaar ah magaalada lagu magacaabo alfashir, gordofaan ilaa madaafur oo idil. waxaana ay doonayaan inay qaadaan tallaabooyin kala duwan oo lagu soo afjarayo, sida ay xoguhu tilmaamayaan, kooxda dacmu sariic oo dhibaatada xooggan ka wada waqti xaadirkan qaybo badan oo ka tirsan waqooyiga suudaan, sida magaalada alfashir iyo sidoo kale guud ahaanba gobolka daarfuur iyo gordofaan. qodobkan iyo waxyaabaha ku soo kordha isla halkan ayaad ka daawan doontaa. ugu dambeynna madaxweynaha waddanka syriya axmed al sharac oo ku sugan magaalada washington d c ee dalka maraykanka dhowaana la kulmay madaxweyne donald trump ayaa waraysi waxa uu siiyey warbaahinta fox news. waraysigan ayaana dhinacyo badan taabanayey, waxaana axmed al sharac uu ku dhawaaqay in uu doonayo ka shaqaynta horumarka dadka reer syriya. sidoo kale weriyaha ayaa waxay weydiisay su'aal la yaab leh, waxayna tiri sidee ayaad u aragtaa weerarkii lagu qaaday daaraha mataanaha oo ay ka dambeeyeen ururka alqaacida. laakiin sharac ayaa u muuqda in su'aashaasi uu si sahlan kaga jawaabay, isaga oo yidhi 2001 ama 2000 waxaan jiray 19 sano, wax badanna maan kala ogeyn, sidoo kalena maan kala garanaynin xilligaasi. alqaacida meel ay ka taliyaanna kuma aan noolaan jirin, sidaas daraaddeed su'aashaasi aniga ma ahan ama iguma habboono ama kuma habboono ayuu yidhi qofka aad weydiinayso. laakiin si kooban waxaan ku dhihi karaa wixii ka dhacay ama weerarkii daaraha mataanaha waan ka xumahay, dadkii ku dhintana waan ka tacsiyadaynayaa. axmed al sharac ayaa waxaa la leeyahay waxa uu u muuqdaa nin gebi ahaanba ka dabaalanaya su'aalaha ay kula soo ordayaan waddamada reer galbeedka, kuwaasi oo ay doonayaan inay ku ogaadaan waxa uu damacsan yahay, maadaama uu ka mid ahaa kooxa jihaadiyiin ah kuwaasi oo ka dagaalamaya gudaha syriya, ugu dambeynna ku guulaystay in isaga iyo jabhadihiisaba ay ridaan xukuumaddii bishaar al asad, kadibna talada dalka ay la wareegaan. axmed al sharac ayaa la leeyahay wuxuu ka gudbay waxyaabo fara badan oo reer galbeedka iyo sidoo kale maraykanku ay ku xujeeyeen. haatanna waxa u muuqda ayaa leeyahay inuu noqday siyaasi diblomaasi ah, sidoo kalena bisil, tallaabooyin kala duwanna qaadaya. gudaha midtaas ayaan kusoo gabagabaynayaa wararkani ugu dambeeyey gudaha soomaalida iyo caalamka. ilaa dhammaadka haddii aad soo gaartay waxaan ku xusuusinayaa inaad janalka subscribe inoo saarto, qaybna aad ka noqoto saaxiibada ku xihan. waxaan ku soconnaa waddadii aan ku gaari lahayn 30,000 oo subscribe. keliya safarkeenna adiga ayaa ka dhiman ee suulka saar oo subscribe inoo saar janalka. mahadsanidin.